بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إن شاء الله تعالى waxaan ka hadli doonaa oo isku baraarujin doonaa runtii calaamaadka sixirka jinka iyo isha waxaan isku daynaa inaan mid u kala qaadno sixirka oo kale aan ka hormaraynaa iyo dhibaatooyinka qofka muslimka uu keeno sixirku waa wax quruna oo dulaysan oo shaydaan iyo balaayo iyo khuraafaad iyo dad diin la-aan ay ka dambeeyaan waa wax runtii dadka sameeya dad shayaadiin caabudo ay sameeyaan ilaahay aan caabudin subxaana wa tacaala xaqiiqatan ilaahay ma caabudaan dadka waxaa sameeya mushrikiinna way u badan yihiin dad ilaahay ku xidhana maaha dad masaajid ku xidhan maaha dad diin haysta maaha dadkaas dad baa u tegaya nin baa naag jeclaanaya wuxuu u tegayaa nin khuraafiya oon ilaahay aqoon subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay islaanta inaad jeclaysiisaan rabaa bilaayo adigu akrinaya ama waxbuu duuduubaya ama biyo cabsi buu leeyahay ama ol kutaa buu leeyahay saasoo laga yaabaa in qalbigeedii qofkaas uu ku hanto markii khuraafaadka la sameeyo isagana ilaahay baa ku imtixaamay kan laftigiisa isagoo laga yaabo inuu muslim ahaa oo tukanayay oo salaadiisu isaga toosneyd baa laga yaabaa fidnadaasu inay u timaado fidnadaasna uu ku fidnoobo sababtoo cidduu wax ka raadinaya waa cid bikayr illaah ah waa cid aan ilaahay aqoon subxaana wa tacaala waa cid aan ilaahayba u sujuudin isagu ilaahayba waa u sujuuday masaajid baa laga yaabaa inuu geli jiray laakiin ciddan uu wax ka raadiyay wax ka doonay waa qof ilaahay aan ku xidhnayn intaa markaan uga gudubno dadka sameeya sixirka waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a dhabarku qofka wuu xanuunaa ay sixir oo dhan nooc walba ha noqdo qofka hadduu qabto oo sixirkaasu ta'hiiriyo dhabarka meesha suunka laga xidhay dabagibintaa meeshaas ku dhuftaa meesha unbuu qofkii leeyahay halkaasaa layga haya ma socon karo ma shaqaysan karo ma okay waxaa kaloo lagu gartaa naxdin dhabarkaasa xanuunaya naxdin buu yeelanaya wadna garaaca madaal marmar wuu yeeshaa jeexiyo xanuunaa way jiraan marmar oo xidid oo kale sidii madaxoo kale iyo hurdo la-aan iyo waxaa wareer waxaasoo dhan wuu yeelanaya qofka muslimka markaa waxaan uga sheekeynayna waxaa waaye dad badan baa ku fidnaysan oo ilaahay kaga go-ay subxaana wa tacaala meesha loo laabanaya cidda ku abuuratay waa allah ciddaad u laabanaysana waa allah ama saaxir noqo ama mid u taga noqo ha isku dayin wax yar intay kaa tanbadiyaan ama jacayl oo kale intaad cid jeclaato oo kaa tanbadiyo inaad ilaahay subxaana wa tacaala cadho geliso ha isku dayin inaad rabbiga aad ka xishoon weyso isku day allaha aada la kulmi doonto markaad dhimato ku abuuray ee indhahan maanta ku siiyey ee caqligan ku siiyey ee garaadkan ku siiyey in aadan ku fidnoobine ilaahay aada usoo laabto subxaana wa tacaala marka bahalkaasu dawuu leeyahay dad baralays buu ka dhigaa jeex buu ku dhiftaa qalal iyo shalal wuu sameeyaa qof waxaad arkaysaa lagu leeyahay baralays weeye oo dhiigkar baa ku dhiftay waxaad dhici karta dhiigkarba inuun ahayn markuu xanuunkana ku dhacay in la sixray dhinacii uu ku dhiftay ile xawaadistoo dhan buu qabtaa indhaha wuu ku dhacaa afka wuu ku dhacaa hadalka wuu joojiyaa urta wuu joojiyaa gacmaha iyo lugaha iyo wuu fadhiisiyaa wixii xawaadista yacni meelihii wax qabanayo o dhan wuu baabi'iyaa marka ilaahay aynu ka xishoono subxaana wa tacaala ilaahayna aynu la cararno oo ilaahay aan isu dhiibno bahalka ilaahay baa laga magan galaa adkaar baa lagu soo siiyey adkaarta qaado waxaan ku xisiinaynaa isha bini aadanka isha bini aadanku waa wax aada u dhib badan sixirka bayada ka daran waxaad arkaysaa gabadh muslimada oo timo jilicsan lahayd timii ama way ka biibeen ama way jarjarmeen il baa ku dhacday wejigeeyo taqayur ah weji qurux badan baa la siiyey mee qarsan waxaa laga yaabaa inayna qarsan waxaa laga yaabaa mid xaasidada ama xaasida inuu usoo wareego ما شاء الله ونردين تغير باكو دعي
boogay noqonay haaray noqonaysa haaro ila wejigii baa ishu kaga dhacday waxyaalaha la yaab kale ishaanu ku aragnay dadka badankiisa qalala indhahaanu saaray dadkan suuxminaha qaba wax kale ma hayaan waxaa jira sixir la yiraahdo sixiru marad oo suuxdinta sameeya markuu qofku suuxo wuu isqaniinaa oo is calaashad carabku calaashada haddaa aragto qof carab calaashanaya waa waxyaalaha shayaadiinta haya marka ilmaha yaryar way ridaa way qallajisaa iskooladoo kale u ka dhacaa tusaale ahaan waxbarashada wuxuu ahaa nin heer sare ah ama gabadh heer sare ah xaflad baa loo dhigay xafladdii markii loo dhigay adkaar ma taqaano waa caddaysin iskool un ku kortay iyo wax loo sheego ilaahay laakiin adkaartiisii iyo diintiisii waxaa laga yaabaa inay khaali ka tahay oo ay ka maran tahay maalintii dambe iyadoo xaragoonayso ama isagoo xaragoonayo isla iskoolkii dee waxba fiican baad keentay ila shaydaan un baaba sugayeyba inay ku dhacdo sidaa uu ku baktaysto baa la yidhi hebel hebel xuseen cabdi xasan wuu soo istaagay lambar kow baad gashay isaga isma ilaynayo laakiin dadka maasha allah ma yaqaanaan mid ilxun baa ku jira mid fiican baa ku jira dadku way kala duwan yihiin ishii baa ku dhacday cunugii bal iskoolkii kaala ku kal waxaa laga yaabaa qalal xitaa inay ku rido inay madax xanuun ku rido inay hurdo la-aan ku rido marka xanuunadan qalalka u badan ilmaha yaryar aan aragnay qaar waxay ka dhigtaa hadal la-aan hadalkay yacni qabataa oo hadalkii eber ka dhigtaan ilmo yar oo soo korayo hadalkiiba aan lahayn jinku culays buu halkaa saaraa isagu margeeda garbuu culays aada u saaraa cibaadadana uu isku dayaa inuu qofka ka mashquuliyo oo waxyaalahan jaadka iyo qurunka iyo waxwareega iyo diraciyada iyo xijaabka uu kaa tuuraya jin hadduu ku galo xijaabku kaa tuuraya waa jinka caadiga khayrkii buu kaala dadaalaya haddii aad wadaad ahayd masaajidku kaala dagaalamaya wuxuu isku dayayaa wixii cibaadada khayrka ku jiray ilaa walba wuxuu samaysnaa inuu khayr darro u samaysnaayo inuu maaragtay isku dayo inuu kaa mashquuliyo marka ilaahay subxaana wa tacaala aan uga soo laabano naxdinta wadna garaaca daalka ishu way leedahay naxdin way leedahay wadna garaac madaxiyo dhafoorada waxaasoo dhan way leedahay jinku margeedu qabtaa marka ilaahay aan uga soo laabano waxaasoo dhan walaalayaal difaac baa layna soo siiyey difaaca ilaahay subxaana wa tacaala noogu soo talagalay aynu isku dayno inaan baranno ilaahayna kaga xishoonno subxaana wa tacaala war ilaahay baynu u soconnaa ilaahay baynu subxaana wa tacaala xaggiisaynu usii jeednaaya inta yaree nafta kugu jirto shaydaan yuu ku mashquulin yuunu isku dayin cadowgii ilaahay tilmaamay inaad cadow ka dhigato ina shaydaana lakum cadow faاtakhiduuhu caduwa yuuna isku dayin inuu kusoo marxabeeyo inuu ku yidhaahdo xabiib baan ku ah hadduu dirac kugu rido meelahaad ka qaylqaliso saa u taagan tahay midyaha dee adeer wuu ku duubsada isagii baa nagu shaqaynaysa marka ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka baqno ilaahayna aynu isu dhiibno aayaadka ilaahayna aynu qaadanno wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu